السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي اسكو soo noqdo wanaagsan videogan wuxuu ku saabsan yahay videogii ka hor Mo Farah ku saabsanayd su'aasha dadka oo dhan isweydiinaysa waxay ahayd maxaa Mo Farah ma ku kalifay inuu arinta hadda dadka la wadaago ani shakhsiyan horta markii ugu horeysa waxaan doonayaa markii aan videoga aan duubay kii hore documentary-ga ma daawan laakiin maadaama hadda aan documentary-ga daawaday sidii marka hore waxaan u arkay iyo hadda wallahi wax weyn farq weyn baa u dhaxeeya sababta waxa weeyaan waa la qiirooday runta haddaan sheego maaragtay waa la qiirooday sababtana waxa weeyaan waan fahmay haddaan fahmay sababta ku kaliftay inuu hadda maaragtay waxyaabahan oo dhan soo bandhigo horta markii ugu horeysa Mo Farah xaq buu u leeyahay inuu isaga sheekadiisa isaga ku saabsan intuu qof kale la wareegi lahaa inuu isaga dadka u soo bandhigo you have to own your own stories baa leedahay qofku waa inuu sheekadiisa isagu uu maaragtay gacanta ku qabto oo qof kale la wareegin taasna 100% waan ku raacsanahay waxyaabo kalena waxaan isleeyahay saan anigu isleeyahay this is again my opinion xaq buu u leeyahay maaragtay family-giisa wuu dhiman karaa caruurta su'aalo badan bay weydiiyeen documentary-ga qofkii daawada fahmi karaa xaaskiisa maaragtay xaq bay u leedahay ninka dhabta ah ay guursatay hadduu been kula dhaqmo it's not right taas horta waxa muhiimad ugu horeysa maaragtay inta aan iska ilowno Mo Farah at the end of the day waa qof maaragtay waa bini aadan weeyaan adiga iyo anigu la mid yahay he's got feelings marka dad badan baa marka hore la yaabnaa hadda muxuu sheegay anigu ma aan saas ma ahayn laakiin anigu I was just curious was weydiinay anigu maxaa hadda ku kalifay why now hadda muxuu maaragtay u doortay inuu hadda sheekadiisa soo bandhigo caruurtiisa family-giisa xaq bay u leeyihiin ta kale documentary-ga waxa ka dhex maqlaysaa hooyadii iyo walaalihii baaba ku raacsan in uu sheekadan maartay dhabta ah inuu dabada maartay soo dhigo oo uu waliba u sheegayo documentary dhexdiisa ku leeyahay saa u aragtaan waayo waxaan nolosha ka sheekeynaya laga yaabo inuu wax weyniisii hooyee waxa maleynaysiin farxad weyn bay tahay oo inay wax qabad wax alla si kale u yiraahaba magacana ku dhalan adoon Ingiriisna arag adoon wadankii joogin waayo horta waxaad ka sheegtaa qofku waxa fiican taariikhdiisa runta inuu sheego beento xaraga sheekadeedan dhabta ah haddaan dadka la wadaago laga yaabo waxyaabo badan maaragtay inay igu dhacaan oo negative oo isagu waxyaabo badan ay ka lumaan ay ka xumaadaan family-giis way ku raacsan yihiin sababta ku kaliftayna hadda anigu saas leeyahay hadda inuu sheer gareeyo wax weeyaan waa wuxuu ka gudbay xilligii uu maaragtay tababarka ku jiray qof kasta adiga ma ay daawanaya you need to understand waa inaad fahantid maaragtay wax noloshaada markaa ku jirtid waa inaad wax maaragtay marba dhinac u beerin whatever aad markaa ku dhex jirto horta markaa dhamayso waxa markaa dhamaysid waxa kale u soo jeeso he is in the right place waa waqtigii Ilaahay u qoray inuu xilligan uu sheer gareeyo in blackmailing lagu sameeyay oo maartay dad kale ay dad baa ogaamo ogtahay dadkii soo kaxeeyay ahaayeen ba aronkee laakiin hadii lagu sameeyay la yiri maartay ana ku qarxeena sidan kanana because dadka maanta isma naxayaan sheekooyinka waliba la kala iibsadaa taasa dhici karta kale ku kaliftay anagu isleeyahay again saga wuxuu doonayaa ruuxiisu inuu nasto he wants to be okay qof culays saaran buu ahaa suu isagu yiri he's right waa bin aadan weeyaan runta hadda doonaysid inaad ku noolaatid oo aad meel kasta maaragtay aad martid adigoo xorriyad ah maskaxiin ka xorriyad ah fiican marka anigu miskiinka like intaas oo sano oo uu maaragtay he had to pretend ka waran kamarado dhan bay soo hortaagi jiray meelo badan sagoo og haddana runta haddana run wax aan run ahayn oo haddana been ahayn maartay haddana sii waday ka waran how much culayska saarnaa ka waran marka qofku maartay muslim been ahay dadka waa in qofka kale aad dareentid maartay dhibta haysata haduu waliba kula wadaago haduu dadka la wadaagay hadii kale maartay saga waxa happy waa inuu sameeyo do what makes you happy saga tan saga u fiican feature-ka caruurtiisa xaq bay u leeyihiin caruurtiisa u dhalay saddex caruur leeyahay iyo gabadhka kale xaaskiisa ay dhashay laakiin saga wax weyn saga maanta waa aaba ah iyadoo xaq bay u leedahay family-giisa ugu horeeyay maanta haday tiisa noqoto waa foolxumo inuu hadhowta la yiraahdo aabaha qofkaas ma ahayn qofkan uu ahaa qof kale uga sheekeeyo imagine so he's respecting his family taas waa mid ta kale waxa weeyaan oo waxyaabo badan baa maartay jirta markaad qofka uu dadka athlete maartay footballka ciyaar hadda sida Beckham oo kale dadka kale nimanka fahmi doona tan
dadka waad aragteen footballka ciyaari jiray markay ciyaarayaan hadhowto markay da'ay gaadhaan waxay u gudbaan ama coach bay noqdaan ama manager bay noqdaan ama qof dhan buu waxa aad leedahay dadkaas waxay leeyihiin team la yiraahdo like media attachment dad maaragtay oo u shaqeynaya waa lagula talinaya marka talo badan baa ninkan la siiyay kaligiis kama socdo ta kale intuunan waxaan dabada soo dhigin looyaro oo maca documentary maartay ku tusayso maartay isagoo looyaradiisa la tashanaya oo waayo wuxuu og yahay in passportka laga qaadi karo inuu waxyaabo badan ku dhici karaan dadkan caanka ah celebrity-ga ah maartay nolol dhan oo bay leeyihiin oo ay risk ku jiraan markasta waxa weeyaan qofkaasi hadda sidoo kale uma noolaa xilligay doonaan iskama bixi karaan qaar meeshii doonaan iskama soo maartay holiday uma bixi karaan security bay haystaan lawyer ay haystaan lawyeradooda markaa ay wala taliyaan dadkaas waxay ku yiraahdaan de waxaana sameyn kartaa kan ma sameyn kartaa kan kuma haboona iyo koox kale leeyihiin oo ku saabsan qofka shaqadiisa qofka hadduu maartay public figure u yahay uu da gaaro waqti maartay baa imanaysa inaad wax kala gudubtid marka Mo Farah hadda diyaar buu u noqday inuu wax kale u soo jeesto waayo hadda tartanada maartay adduunka ee caanka kama qayb galayo wuxuu ka qayb gali doonaa waxyaabo kale oo ku saabsan in maartay shakhsiyadiisa uu hadda waqti u helo waxa ugu horeeyo oo dad badan ay share gareeyeen oo comment ka xaq hoose waxay ahayd in laga yaabo in book soo wado kale bookana waxa weeyaan money book maartay sheekadaada markaad maartay aad dadka la wadaagtid waa sheeko khatar markaad raad maartay waa la soo xaday saasan ku soo koray sidan ma ahayn sidan ma ahayn he needs to earn maartay money and future kiisa ile waligi ma ordi kare wuxuu maca ka helay de wax laguma sii noolaan karo waa familigiisa waa wali uu sii shaqaysto Johnson so society ku jira oo chance leeyahay maanta inuu ka faa'iideysto sheekadiisa dhabta ah هذا دون فيلم بلغ اسمين كرا he's gonna earn those محل هذا rights كمارتي مقعة شيء كذا هذا فيلمان بقى مع لغ اسمين كرا سوق مركا وينو لو ريجو وقف كلا قرحين again سايندو شيء جاي أن كوسو نقولنا شيء كذا يعني شيء جيان لها مارتي دتك مركي فوتبولر كمركا نقدان إيو فيلمانت إيو واحد سمين شري مركا هدوتو مركي دا أي ما سمين كرا because of دا إيو وحيابا كلا مارتي أو كوسابسن وين واحد كلو جود بنا مركا training بالسيا أن هدوتو أنت أنا واحد كلو جود بن wax kale aan u fiirsaday anigu this is my opinion aan markaan u fiirsaday because media waxaas maarta anigu de kuma shaqo kuma lihi aqoon ma lihi laakiin this is my own opinion waa waxaan arkay dadka celebrity-ga ah every Christmas maarta xilligan Noelka Christmas-ka markuu qof ka fadhiisanayo career kala maarta ama wax kale uu ka fadhiisanayo wax kale uu gudbayo charity waxyaabo badan baa lagu xiraa marka Mo Farah Christmas-ka soo socda xasuusta Christmas-kan please video-gan مسكحة ملك مارت كوسي ميرسي دي وانا شيء I'm 100% واحد اللي هذا nose محل هذا red nose بالي هذا every Christmas دتك عن كأم TV جمارت كحران and red nose واحد اللي هذا أو charity ويان واحد صدقات مياه كلب وتصنت هاي أو عروتة لا أوروريا أو هذا hospital هذا دتك فارمية هذا دباتيسن عرورة حنوسنيا العج أوروريان مركا هذا training كسالسينيا Mo Farah وكقبل قريدونا waayo wuxuu ku xidhnaan doonaa his own story baa la isticmaali doonaa oo la oranayaa you know this is your personal story marka nooga sheekay waxa soo gali doona sheekooyinka ku saabsan caruuraha la xado ee traffic lagu sameeyo human trafficking child slavery waxyaabahaas oo kale and foundation kaas maartay Mo foundation buu soo leeyahay oo meel maartay oo biyaha iyo Soomaaliya maartay caawisa u maleynaya marka ta qura maaha wuxuu ka qayb gali doonaa oo saga maartay la dhoofin doonaa oo ama charity maartay ay dadka ka shaqeeyaan ay la soo duubi doonaa isagoo Mo Farah oo maartay waraysanaya caruura ka badbaaday child trafficking iyo waxyaabahaas oo kale marka wuxuu noqonayaa like maxalada public figure buu u noqonayaa dadkaas maartay caruuraha la afduubo oo la kaxaysto so marka this Christmas maartay Christmas ka soo socda marka waad arki doontaan programmo badan baa la soo daaya Mo Farah wuu ka qayb gali doonaa waad arki doontaan TV-gan ku arki doonaa waana his maartay waa runtii and he needs to be there waanu dadka caawiyo caruurahaas kulay maartay ma khasaarayo dad kalena uu caawin doonaa marka he needs to raise maartay waa inuu xalada raise maxaladaas af Soomaali waa in dadka inuu u sheego weeyaan maartay inay dhibaatada ay jirto inay de inaga hadda bilaabantay الله يعلم I don't know لكن شيء ده عرورة ولا حدا أنا أقول عرور بالله ما أنت وان بقينا ما لا تسكت والله حد كرا
taasoo kale laga hadlayaa iyo ciyaal lagu shaqaysanayo kale marka taas baa keeni doonta Mo Farah ama in buug uu qoro ama uu documentary badan soo sameeyo isagoo wareysanaya caruuro kale oo dalka la geeyay oo ama Afrika maaragtay caruuraha yar masaakiinta ah halkaas intuu tago oo training soo qaadanaya ama uu la soo shaqeynayo oo hadhowtu si maaragtay he needs to be present waa in la arko oo maaragtay laga hadlo qofku waa inuu purpose maaragtay leeyahay marka I think Mo Farah wuxuu gudbi doonaa his purpose waxay noqon doontaa hadda laga bilaabo in uu child trafficking iyo waxyaabahaas maaragtay oo dadka la shaqeeyo hay'adahaas waaweyn oo la shaqeeyo marka that's my opinion laakiin mid kale video kale aan soo wadnaa insha Allah anigii Jamaal aan ka hadli doono waayo gaar ahaan maaragtay Jamaal bay taabatay sheekadani waayo haddaad nagu xidhnayd in badan aad daawanayseen maaragtay channelkan mar waa tuu Jamaal uu share gareeyay wax maaragtay qisadiisa isaga gaarka ah qisadiisa iyo Mo Farah inta hore waxaad moodaa waa mataano same haddaad videoga daawateen markuu qisada dhabta ah ee uu soo maray waa fahmi doontaan sababtaas aan markii ugu horeysay maaragtay ma fahansanayn like I don't know markii hore isma keenin laakiin intaan aan bixina intaan videoga dhammaan waxaan doonayaa ku darsado sana my opinion maadaama uu maaragtay sheegin in ay gabadhii inay garaacin just waxa weeyaan waxyaabo fara badan baa isdiiday marka documentary marka daawatid iyo isagu wuxuu sheegay iyo say saxda ah maaragtay waayo labada qofba maaragtay waa la wareysto dadkii isaga soo kaxeeyay ee familygaas ula deganaa waxay iyagana dhinacooda maaragtay waa in la helo oo iyagana ay dhinacooda la maqlo anu malihi Mo Farah baan buu sheegay laakiin sheegay like it's always better maaragtay waxa dhaantay in labada maaragtay dhinac la dhageysto waayo Soomaalida maaragtay in mayar la soo qaato oo maaragtay la kala iibsado ama lagu shaqeysto oo it's like maskaxda maaragtay ma galayso like laakiin way jirtaa in mayar intaad soo qaadatay oo hadhowto maaragtay lagu shaqeysto oo waxa la yiraahdaa eedo waa loo yaqaan eedooyinka sida waxay sameeyaan saasoo kale taas way dhici kartaa Soomaali badan baa jirta oo aan dad aanan maaragtay shaqo ku lahayn soo koriyeen si kastaba ha noqotee laakiin haddana way jiraan sheekooyinka Mo Farah oo kale kaligiis maaha waxaan leenahay asxaabta saas nabadgelyo insha Allah video kale isku maqli doonaa assalaamu calaykum